waxaan kusoo booqday stuudiyaha Puntland TV ee magaalada London ilma General Maxamed Abshir Muuse oo kala Cumar iyo Caaisho waxa ayna ka hadleen arinta ku saabsan guryo ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho oo xoog lagu haysto maray arintaasi ka hadlayeen waxa hadaladoodii kamid ahaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعمر محمد أبشر وحان دعوت كنهي أنه إلما محمد أبشر دادك قريها يغا حوغ كوهيستا مهد عود يا خديجة محمد ديرية أيغو أود دولدات شاكتين وحان كعد صنيا مدحوينها رئيس الوزراء شرفت له inay nooga saaraan guryahayaga xaqiyagana inay naka siiyaan. walaalkay Cismaan Maxamed Abshir baa wakiil nooga ah. qof aan Cismaan fasax ka haysanin kama hadli karo arintaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxa waaye Caaisha Maxamed Abshir. halkan waxaan rabaa inaan ka cadeeyo inuu walaalkay Cismaan Maxamed Abshir oo xamar jooga iyo Maxamed Darawal hadalkay dhaheen inuu sax ahaa oo inuu walaalkay Cismaan wakaalad naga haysto haddaan ahnay reer Maxamed Abshir. intaas waxaan ku dari lahaa codsi aan ka codsanayo dowladda iyo mas'uuliyiinta sharafta badan inay nooga saaraan dadkaas guryaheena xooga ku haysta oo anaka gacanteena noogu soo celiyaan. dukumentiyadan oo horteeda yaala waxa waaye wakaaladii walaalkay Cismaan aan u sameynay iyo caqdigii ijaarka aan ka saxiixnay dadka guriga degan iyo maxkamadii aan u gudbinay ka bacdi markay ijaarka guriga diideen.